kulanti wacan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warar wixii xilligan ka taagan dunida caalamka gaar ahaan bariga dhexe waxaan idin soo gudbin doonaa sarkaalkii ugu sareeyay ee sirdoonka difaaca Mareykanka oo isagu shaqadiisa isaga tagay maadaama dawladdiisu ay taageertay xusuuqa ay Israa'iil ay ku hayso magaalada Gaza barnaamijka ayaad ku daawan doontaan barnaamijka sidoo kale daawadayaal waxaan idinku soo gudbin doonaa madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale madaxda dawladda federaalka oo maanta shir uga furmayo magaalada Muqdisho shirkaasi maxaad isleedahay waa uu ka soo bixi doonaa barnaamijka ayaad ku daawan doontaan barnaamijka sidoo kale daawadayaal waxaad ku daawan doontaan afayeenka Abu Cudayda ee kooxda Kataib Izzuddin al-Qassam oo isagu sheegay in ay waayeen xiriirka qaar ka mid ah mujaahidiintoodii ee iyagu ilaalada gaarka ka hayay la heesayaal u dhashay Israa'iil barnaamijka ayaad ku daawan doontaan barnaamijka qodobadaas iyo sidoo kale wixii noogu soo kordha ayaan idinku soo gudbin doonaa daawadayaal wixii aragtay fikri araaba qaybta commentiga ayaad nalaga wadaagi doontaa share leh oo like saar warbixinadeeni si ay u gaaraan meelo dhaadheer oo ay saaxiibo kale ay noogu soo biiraan waa hagaag madaxda maamul goboleedyada dalka ee shalay soo gaaray magaalada Muqdisho sida Jubbaland sidoo kale koonfur galbeed iyo galmudug hirshabeelle hore ayay u joogtay magaalada Muqdisho madaxweynahoodii maanta shir ayaa uga furmaya magaalada Muqdisho golaha wadatashiga qaran shirkaasi oo noqon doona ayaa la yiri mid xasaasi ah oo madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dawladda federaalka ay arimo badan ay uga hadli doonaan waxyaabaha la isla meel dhigi doono waxa ugu waaweyn dagaalka lagula jiro dhaqdhaqaaqa al-shabaab iyo sidii madaxda maamul goboleedyadu ay iyagu u taageeri lahaayeen wax ka bedelkii lagu sameeyay dastuurka balse laba arin ayaa haysata madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya waa in mudaxileedka madaxda maamul goboleedyadu uu u kordhiyaa oo waqtiga uu ka degayo xilka ay gaaraan iyaguna balse waxa la tilmaamayaa in arintaasi ay adkaan doonto ama waxa hor yaala in ay madaxda maamul goboleedyadu waqtigooda u dhamaaday in iskoodi ay doorashooyin ay deegaanadooda ay ugu qabsadaan warbixintaasi ka soo dhiibo aragtidaada waxaana la filayaa maanta in shirkaasi uu ka daafurmo magaalada Muqdisho wixii aaraay fikir iyo talaba qaybta commentiga nagula wadaaga waa hagaag daawadayaal warbixinada kale ee caalamiga haddii aynu fiirino sarkaalkii ugu sareeyay ee dhinaca sirdoon ee difaaca Mareykanka ayaa iscazilay sarkaalkan ayaa shaqadiisii waxa uu sheegay in uu isaga tagay maadaama uu dulqaadan waayo ayaa leeyahay in dawladda Mareykanka ay taageertay gabadh fallada iyo sidoo kale xasuuqa ay dawladda Israa'iil ay ka geysanayso dhinaca jiida Gaza sarkaalkani iscazilaadiisii ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo cadaadis xooggan uu saaran yahay maamulka Yahuuda maadaama la tilmaamayo in dawladda Mareykanka hore ay u sheegtay in ay gabi ahaanba ay hubkii ay ka goosanayso Israa'iil haddii ay u dhaqaaqdo in ay iyadu ay duulaan xooggan ay ku qaado magaalada Rafah sarkaalkan iscazilaadiisa ayaa waxa uu ku tilmaamay in maalin waliba muuqaalo iyo sidoo kale sawiro aad u foolxun oo niyadaada iyo sidoo kale dadka bini'aadamku ay u dulqaadan kareen laga soo qaado magaalada Gaza taasi waxa ay dhibaato ay ku tahay ayuu yiri arrimaha xuquuqda aadanaha waxaan ogsoonahay ayuu yiri in Israa'iil ay bambaynayso dadka rayidka ee ku nool magaalada Gaza iyo sidoo kale meelo kale taasi ayaa igu qasabtay ayuu yiri in aan xilkaygii aan isaga dego sarkaalkani ugu sareeyay dhinaca sirdoon ee difaaca dalkaasi Mareykanka ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in uu shaqadiisii uga tagayo in dawladda Mareykanka ay ku garab taagneed Israa'iil in la xasuuqo ama ba ay duulaan ay ku qaado magaalada Gaza howlgalka Gaza lagu qaaday ma ahayn mid laga fiirsaday ama hore loo dejiyay waxa taasi ay keentay in shacab fara badan oo abriye ah oo Falastiiniyiin ah inay ku geeriyoodaan ayuu yiri dhulka Falastiin gaar ahaan jiida Gaza kuwaas oo lagu baabiyay goobahoodii ay deganaayeen iyo sidoo kale goobihii caafimaadka iyo madaaristii wax laga baran jiray haddaba daawadayaal sarkaalkani iscazilay sidee ayuu dharbaxa xooggan ugu noqon doonaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu cadaadiska xooggan ee sii saarmaya iyo sidoo kale walaaca beesha caalamka iyo reer galbeedka ay u jeedinayaan dhibaatada ay Israa'iil ay ku hayso shacabka Falastiin warbixinada kale daawadayaal haddii aynu fiirino gargaar u socday dhinaca jiida Gaza ayaa waxa lagu soo waramayaa in ciidamada Israa'iil ay rasaasayeen mid ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay ayaa geeriyooday mid kalena dhaawac ayaa soo gaaray gargaarkaasi ayaa waxa la tilmaamay in uu ku sii wajahnaa magaalada Rafah si uu u gaaro magaalada Gaza mid ka dhaawacmay waxa uu ka soo jeedaa wadanka Jordan dawladda Jordan waxa ay si kulul ay u cambaaraysay in la weeraro
gaadiidka ururka qaramada midoobay iyo sidoo kale hay-adaha gargaarka. dowladda Mareykanka waxa ay sheegtay in Israel laga doonayo in ay iyadu ay wax ka galbiso gargaarka bini'aadanimo ee la gaarsiinayo shacabka dhibaataysan ee Falastiin. qaramada midoobay waxa ay shacay ka qaaday in mid ka mid ah shaqaalaheedii ay ku weysay rasaasay ciidamada Israel ay hubiyeen gawaaridii galbinaysay gargaarkaasi. shaqaalahani gargaar ayaa u qaabilsanaa dhinaca amniga qaramada midoobay. السلام عليكم وانا عيدوا ايان waxaan ka mid ahay shaqaalaha xarunta ilka ee Mega Dentist waxaan idin ka caawin doonaa wixii xog u baahatiin intaan dalka iman Turkiga iyo marka timaadaanba dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dunida waxaan ugu baaqayaa cidii u baahan ilka daaweynta noocyadeeda kala duwan in aanay moogaan xarunta ilka ee Mega Dentist taasoo lagu shaqeynayo afkaaga hooyo si fiican lagu qaabilayo